wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo maanta qayb ka mid ah warfidiyeenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in taariikhdaas ciidanka daraawishta ay Soomaaliland lahayd isla markaasina dalalka kale amaba deegaanada Soomaalida kale ee sheeganaya aanay lahayn isla markaasina ay ciidanka daraawishtu ay deganayeen Soomaaliland waxa dhawaan soo noqnoqday meediyaha iyo marar badan oo TV laga sii daayay arrin ku saabsan taariikhda daraawishta Soomaaliland ee Soomaaliland marka ugu horeysa halkan waxaan ka cadeynayaa dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadlo cadeynaya taariikhda daraawishtu waxa iska leh dadka reer Soomaaliland waana taariikh ka dhacday dhulka Soomaaliland inkastoo ay uga sii gudubtay meelo ka baxsan Soomaaliland laakiin macnaheedu bayskeeda hadday hoggaan noqoto iyo hadday history noqoto iyo hadday noqoto goobihii dagaalku ka dhacay iyo hadday noqoto meelihii diyaaradaha lagu weeraray intuba waa Soomaaliland dad badani waxay u qaateen ama fahmeen ama ay khalad ka fahmeen in ummadda reer Soomaaliland ay ka cararayso ama lagu iritayd garayn karo taariikhda ay iyadu leedahay ee ah taariikhdii daraawishta Soomaaliland ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan dad badan ayaa marjigjiga u tuura marna xamar u tuura marna iyagoo raba inay waxyaalo kicina ku sameeyaan le taariikh baanu sidaa ka yeelina waxaan marka hore halkan uga cadaynayaa qof kasta oo iga maqlaya daafaha dunida caalamka Horn of Africa iyo Afrikaba in ay Soomaaliland leedahay taariikhda daraawishta aanay cidna u daba fadhiin taariikhdeeda xukuumaddu ana fayeenka ka ahayna ay diyaar u tahay wax kasta iyo meel kasta oo lagu horumarinayo taariikhda daraawishta Soomaaliland la mideeyo la gaarsiiyo taariikhda ugu sarreysa ee ay leedahay daraawishtu iyo halgankii daraawishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu hogaaminayay waa hanti ay ummadda reer Soomaaliland leedahay sidoo kalena waxa uu wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore uu sheegay in dawladda Soomaaliland ay diyaarinayso shirar lagu xusayo ciidanka daraawishta ee Soomaaliland waxaana shirar kala duwan lagu qaban doonaa deegaamada reer Soomaaliland goobihii uu dagaalku ka dhacay iyo goobihii caanka ku ahayd iyo magaalo madaxda Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in uu barahaas nin haliyey ah oo ku ah afka Soomaaliga macallin Siciid Saalax inuu helay filimkii daraawishta oo lumay 36 sannadood ka hor inuu gacanta hadda ay ugu jirto isaga oo dhan dhammaan dadka ka qayb qaatay dadka magaca ku leh dadka ururiyey dadka isu keenay waxay 90% u badan yihiin dadkii iyo goobaha lagu metelay iyo goobaha laga qaatay dadkii reer Soomaaliland marnaba Soomaaliland diyaar wax laga xishoodo bay u aragtaa in taariikhdii aan anagu lahayn ee reer Soomaaliland sidaa daraadeed Soomaaliland way ku faanaysaa wayna ku faraxsan tahay taariikhda daraawishta iyo inay yeelato dawladdii adduunka ugu xoogga weyneyd ee 21 sannadood in ay daraawishtu la dagaalamaysay ee aan cadceedeeda calanku ka dhicin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland raggii taariikhda wax ka qoray ee researchka ku sameeyay inuu ka mid yahay oo uu yahay shakhsiyaadka ugu aqoonta badan xagga halgankii daraawishta dhammaanna dadka af Soomaaliga ku hadla waxaan leenahay taariikhdu qaybna wayna ka dhaxaysaa qaybna waynu kala leenahay daraawishta bays waxa waa reer Soomaaliland cidda uu daraawishtu la dagaalamaysan Ingiriis oo Soomaaliland protectorate gumaysanayay in waa ogol lahay in la kula daardaarto laakiin yaan taariikhda dalkani lahaa aan loo dhigin in dalkani diidan yahay marnaba wax dhacaya maaha in taariikhda loo tuso ama dadka inta aan waayo arag ahayn taariikhda daraawishta baa meel lagu qabanaya shir baa lagu qabanaya
halka ugu mudan ee lagu qabanayaa ee taariikhdaasi ka horu martay ka dhacday waa halkan. Caydaruus Maxamed Axmed, Ariel TV, magaalada Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.